Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kaliya muuqaal kaloo xiiso leh. Horumarkiiyo guushu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan uguna muhiimsan ee aadamuhu u hanqaltaago inaad noqoto qof horumar ka sameeyay noloshiisa, kuna tiirsan naftiisa, gacan qabta dadka ku hareeraysan, sidoo kalena bulshadiisa wax ku soo kordhiya. Waa riyada aan ka wada simannahay dhammaanteen halgankiiyo loolankan aan ugu jirno. Laakiin nasiib darro, boqolkiiba 10 keliya ayaa gaadha horumarka ay ku taamayaan, halka inta soo hadhay ay ku fashilmaan hardanka nolosha. Haddaba maxaa dib u celiyay? Maxay tahay fashilka nolosha? Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 10 wax oo sabab u noqda fashilka nolosha. Guushu waa himilo hiigsi aad leedahay oo aad gaadhi doonto, mana aha mid ku timaada xagla laaban, sahal, fikir gaaban, hami yaraan iyo samir la'aan toona. Jooji inaad dayacdo salaada iyo dhammaan cibaadada Alle. Jooji inaad naftaada been u sheegto, khiyaalna ku maaweeliso. Nolosheennu waxay rumowdaa oo keliya markaan fursadda ka faa'iidaysano. Fursadda ugu daran uguna horreysa ee aan qaadan karno waa inaan nafteena daacad u noqono, mar walba aan u sheegno hadallo ka fog riyo iyo lamaawaal. Jooji inaad waqti ku lumiso saaxiibada xun. Noloshu way ka gaaban tahay inaad waqti ku lumiso dad farxadda kaa qaada, noloshaadana aan waxba ku soo kordhinin. Inaad ka gabato ood ka cararto dhibaatada waxay ka mid tahay waxyaabaha soo dedejiya guuldarrada. Wajah dhibaatada ilaa aad ka xalinayso. Tani waa waxa kaa dhigaya qofka aad rabto inaad noqoto. Jooji inaad ceebaha dadka la raadiso, kadibna aad samayso cambaarin, cay iyo cilad sheegis joogto ah. Xaqiiqatani waxay kaa hor istaagaysaa inaad dantaada mashquul ku noqoto oo horumarna aad samayso. Jooji caajiska, wahsiga iyo inaad iska fadhido. Naftana aad siiso firaaqo ka badan oo ay iskaga fadhido, ku fikirto ama hawl kuu taalla aad ka wahsato. Waxay ku horseedaa burbur iyo fasahaad. Ku mashquuli naftaada shaqo, wax akhris iyo wax faa'iido kuu leh. Jooji inaad ka cabsato inaad khalad samaysaa oo aad khaladaa waxay 10 jeer ka fiican tahay inaanad waxba samayn. Guul kastaa waxay leedahay fashil badan, fashil kastana waxa hubaal ah inuu ku gaarsiinayo ugu dambeyn guushaad rabtay. Jooji isku dayga inaad farxad iibsato ama aad dad kale ka raadiso. Haddii aanad ku faraxsanayn qofka aad tahay iyo waxaad haysato, ma jirto cid kale oo farxad ku siin karta. Waa inaad deganaan iyo qanacsanaan u abuurtaa naftaada. Waxaa hubaal ah markaa kadib inaad adigu dadka kale farxad siin karto. Ilow wixii hore, dibna u bilow nolol cusub ay guushu saldhig u tahay, shaqaduna derbi u tahay. Ugu dambeyn, ogow daawade, waddada guushu inay tahay waddo aad u dheer, una baahan dadaal iyo dhabar adayg. Qodxaha yaalana aad ku dhaafi kartid qorshe iyo yool cad oo keliya. Inta ayuu ka gey muuqaalkeena maanta. Intaan muuqaal kaga kulmano, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa horiga dhiirigelinta dhalinteena Soomaaliyeed.